Asalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamay waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtiin. Maanta waxaan idin wadaa video cusub oo faa'iido cusub ah. Insha Allah waxaan rabaa inaan idinla wadaago sida cijiyaha u quruxsado aan u habaysto anoo salon aadin oo guriga joogo. Marka daawasho wacan insha Allah. Laakiin ka hor intaan video guda gelin waxaan rabaa inaan idin codsado inaad channelkan subscribe ii saartid haddii ay ugu cusub tahay insha Allah. Marka soo jeedii maanta waxaan rabaa inaan cijiyaha aan sameeyo hortiina camera horteeda inaan ku sameeyo iyadoo muddo dheer igu dambeysay inaan sameeyo salon iyo wax anoo u baahanin aan gurigeyga ku sameysanaa. Kaliya waxa waaye wax walba isku day u baahan yihiin inaa maxaa isku daydin waa sameey kartaa insha Allah. Marka hadda ani waxaan rabaa inaan idinla wadaago qaabka aan u sameysto marka insha Allah faa'iido wacan aan idin leeyahay. Sida ogtihiin cijiyaha waxyaabaha uu soo saaray gacmaha inta badan quruxda gacmaha haddii cijiyaha ay toosin yihiin gacmaha waa qurxanahayaan haddii cijiyaha ay qasan yihiin gacmaha qurux ma kusoo baxayaan. Marka hadda waxaan rabaa inaan idin tuso waxyaabahaas aan meeshaan aan ku haysto oo aan soo diyaariyay si cijiyaha u sameeyo. Biyo qandac aan ku soo shubo baaquli biyo qandac oo qandac kuleel u dhow laakiin aan ku gubeynin sababtoo ah waxaan rabnaa inuu hilibka ama maqaarka oo cijiyaha geesaha ka saaran inuu jilco. Marka waxaan rabaa inaan ku daro baking soda si oo caawiso baking soda xataa uu caawinaa cijiyaha jilco ka dhigaa si markii aad sameynaysid aan nadiifinaysid ee kugu fududaato. Laakiin hadda aad cijiyaha oo macnaha maqaarkii sidiisu qalalana sameynaa dhibaato waa mana sameey kartid dhibeen kugu noqonay. Marka waxaan hadda idin tusaa sida aan u sameeyo biyo qandacaas wax yar baking soda ku daraa kadibna gacmaha dhex dhigaa cijiyaha faraha si ay u jilcaan marka cabaara ku haynaa ilaa 5 daqiiqo camal si ay u jilcaan. Waxaan soo dhahay faraha oo nuuxina waxa waa inaan dhiiga dhaqaajiyo marka ilaa iyo inta idinka ku higtiin ku keenaysiin biyaha imka dareentiina qaboobeen waa qalaas waa jooji kartaa. Marka hadda alaabtii oo dhan waa soo diyaarsaday wax walba diyaar ku ahaada marka biyaha gacanta uga bixsidne shukmaan yara qabsanaysa ku tirtiray gacanta si biyaha uga bixisid laakiin qaleel zaid ma ka dhigaysid sideeda ku dhafaysa. Alaabta dhan waa soo diyaarsaday mar rabo inaa wax doontid wixii dhan meesha soo saartid waaye. Marka hadda waxaan idin tusaa hal new shayga waxyaabaha isticmaalooyo alaabtan kuwan waxa waaye kuwa oo cijida lagu hoolo qaabka cijida aartidna ka dhigtid kuwa ku sameynaya waa kuwan waa lagu hoolaa cijiyaha waa lagu simaa. Marka waa kaas sidaas u sameysan yahay noocyo badan jiro nooc bir jirto laakiin birta cijiyaha jibinaysa kuwana ka fiican. Waxaa kaloo baahan tahay cijiin jar caadi ah. Waxaa kaloo baahan tahay geedkan u yaalo afka hore wuxuu ka yahay caag camal ma aqaan si af Soomaali magaciisa laakiin kuley u jeedin saas u yaalaa waan arki doontiin waxa ku qaban doono aad u jilcan yahay afkiisa hore sa u jeedin marka geedkaas u baahan tahay. Waxaa kaloo baahan tahay birtaan oo saas u qaloocan afkeeda skin camal ay u eg tahay laakiin ma aqaan ida xataa wax lagu dhaaf Soomaali laakiin birta idan waxa waaye waa u baahan tahay marka cijiyaha sameynaysid. Marka badan alaabtan waxaa laga helaa meelaha oo waxyaabaha qurxinta lagu gado sidoo kale waxa u baahan tahay cijiin jar oo yariis ah meelaha qaar oo kaas oo galin weynka oo jar karin lagu jaraa insha Allah. Marka alaabtan dhan waxa ka helaysaa meelaha oo alaabta qurxinta lagu gadgado marka hadda waa kala maan baking soda iyo biyaha marka halaan aan hadda u soo harnay alaabtii aan isticmaal lahay kaas waa biyaha oo rinjiga lagu tirtiro
lacala haduu rinji kuu marsan yahay inaa kow horta rinjiga tirtirtid aa kasoo bilaawdo howsha intaadan dhaqin cijiyaha. Ani hadda rinji ma ii marsaneen marka rinjigaas aa ujeediin aan marsan doonaa insha Allah hortiina qaabka u marsanayo nii tusaa. Marka hadda kow cijiyaha horta aa jaraysaa cijida sida aad rabtid inaad ka dhigto aa u jaraysaa. Haddii aad rabto cijida inay afar gees ku ahaato si qaab afar gees ahaan aa u jaray. Haddii aad rabto cijida inay wareeg ahaato si wareeg aa u jaraysaa. Haddii aad rabtid inay ahaato si saddex gees ah adi sidii markaas aad rabtid inaad ka dhigto cijidaada aa u jaraysaa si ay kuu caawiso. Marka ani hadda waxaa rabaa inaan ka dhigo qaabka saddex geeska camal marka geesaha kasoo jaraa. Waxaan rabaa cijida inay si dhuudhuub ahaato ma rabo inay ballaar ahaato afar gees ahaato. Marka hadda waa arkaysiin sidaa u jarjari doono insha Allah. Waa kaas suulkaan jaray kow hore waa idin tusaa qaabkaas ujeedaa saddex geeska waxaa ula jeedo qaabkaas waa hadhowti cijida markay dheeraanayso saasay kugu dheeraanaysaa yacni afar geeska ma naqayso qaab kale ka ma naqayso adi aa ka dhigtay kow hore markaa jaraysa ay ahaanaysaa saasay ku dheeraanaysaa. Marka kow hore daa saxdid way saxmaysaa. Marka hadda waa kana waan idin tusaa geedkan wuxuu leeyahay lambaro waa kaas lambar kow laba saddex uu leeyahay. Marka kan kow aa u adag kaas waa midka aan ku simaayo geesaha saas ugu xoqaysaa cijida si ay u simanto quruxna u soo baxdo marka la dheeraanayso saa ujeediin hadda lambar kow waa isticmaaloyaa asaa u adag kadibna lambar labo sidoo kale cijida oo nadiifina adi waxaa raacaysaa lambaradaas ilaa afar marka dhalaal mid yeelay iyo mid oo simaayo ay kala yihiin. Marka geedkan aad u fiican yahay cijida aad u caawiyaa marka jabaysa cijida haddii mar walba oo meel ka dhow oo yaalo cijida ka jabta lacala ama wax ka gaaraan waa soo qabanay bas saas ugu waleysa way isla simaysaa cijida ma jabayso. Marka haddii aad rabtid cijiyahaada ay ilaalsatid waxaa geedahan inaa haysato qasab. Kan waa mid hore sida ujeediin waa iga dhammaayay waa si jilcay sababtoo ah aad u isticmaalay laakiin hadda midkaan yariska alaabtaas la socday asiga cusub. Marka waa kaasa lambarada daa ujeediin waa kaasa. Marka hadda waxaan rabaa insha Allah inaa cijida dhan aan sameeyo marka fiidiyowga inaan war ku sii badsho ma rabo insha Allah idinka indhaha ka arkaysiin qaabka u sameynayo.
hadda marka maasha Allah waa ka dhamaanay cijiyaha jarjarkooda iyo toosiskooda. Marka hadda waxaa idin tusaa qaybta ku xigta oo ah inaan ka qaado maxaa la maqaarka ku aadan cijiyaha oo maxaa la maqaarka dhinta inaan ka saaro si cijada si qurux badan oo nadiif ah ku soo baxdo. Marka hadda geedkan aan sheegay daate waxa waaye sawjidiin caag camal waaye oo jilcan yahay. Marka hilibkaas dhan aad dib u soo celina waxaa raba meesha inaan ka saaro si cijada ay u soo baxdo cijo qurux badan. Marka geedka saas ugu celcelisid gadaal u celisid waxaa soo qaadanaysaa birta kadib birtan waxaa ku qaadaysaa hilibka. Insha Allah waxaa rajeynaa inaan si fiican ugu jeedin fiidiyowga. Ani hadda wax badan ma ka soo baxay sababtoo ah waa saa idin sheeg waa mar walba sameystaa marka wax saas ma lahan cijideeda laakiinse markii aan muddo camal aan sameynin wax badan ka baxay hilib badan oo waxaa arkaysaa ku dhac cijidaada wuxuu soo baxaysaa kaaliska arag qurux nadiif maasha Allah. Markaad saa u jeedin geedkan wax xanuun ma lahan wax dhaawacna ma kuu geysanayo. Laga yaabo markii koow hore ay kugu tahay kugu cusub tahay inaa wax yar aad dibsatid laakiin wax xanuun oo leeyahay ma jirto. Marka hadda waxaa ku wada cijiyaha dhan soo jeedin hilibka gadaal u celinaysaa kadibna waxaa qaadaysaa diirka dhintay. Marka cijada dhan waxay ku soo baxay kaaliska arag adaa u bogbaysid markii aad dhammaysid. Marka adiyo waxay koow ay kugu tahayne kastoo waxaa dareemaysaa laga yaabo in wax dhib badan ay yihiin ama wax culus laakiin kadib markii aad baratid inaad sameysato adaab u xiisaabo waxaa la waqti ka suubsanayo oo maxaa lahaay xanuun iyo waxna dareemeynin. Marka saas waaye hadda markaa kulli aad ka wada saaro waa arkaysin insha Allah sidii aan u sameeyo fiidiyowga kulli waxaa rajeynaa inaan si fiican ugu jeedin insha Allah.
sida ujeedin hadda video dhamaadkiisa la gaaray. marka insha Allah haddii aad ka heshay videogan like taana hilmaamin asxaabtaada dadka jeceshahay la share garay. haddii aad wax su'aal qabtid commentiga soo qor. aad iyo aad mahadsan tahay daawashadaada. insha Allah video kale iyo faa'iido kale aan kulmi doonaa. intaas intii ka dhiman waxaan idhahaa nabad ku jooga. maca salaamo.